waxaa arkaa shalay iyo maanta isaaq lagu camiranayo la leeyahay barakacyaalaatihiin horta isaaqu waa qabiil laandheera ah oo qadiyey waay laakiin waa goorma mid kale markay Somaliland joogaan waay markay inta joogaan barakacyaal waay sababtana qof aan matalaad lahayn Soomaaliya dawladdu waxay ka jirtaa 20 iyo dhowr sano ka jirtaa yaa qof aan matalaad lahayn bal ka war bilaa ku dhashay wuxuu noqon karaa reeha wiya xasan sheekh wataan daaroodka xamse wataan marxumaas ka dhahan adiga waayahay saaxiibayaal saawada jeedaan ama saawada aragteen ama saydo wada muuqanaysa waxa weeyaan ninkan dhalinyarada waxa la Cabdiqaadir Boos waxa weeyaan nin Facebook-ga oo ah dadka magaranayay social caanka ka ah ama influencer-ka waxa weeyaan reer ahaan ama deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Muqdisho gaar ahaan adaan hoos sii daadagna qabiilka loo yaqaan Afgaalka ayuu ka soo jeeda waxa weeyaan yaani lafta hoose ee madaxweynaha hadda dalka ka taliya ama Soomaaliya ka taliya naahne iyo xasan sheekh maxamuud waxyaabo saan uga hadlaya waxyaabo erayada caynkan ka keenay waxa weeyaan uu leeyahay macna xildhibaanada ee ka soo jeeda Somaliland ee jooga Muqdisho macnaha waxa weeyaan barakacyaal uu leeyahay waxaan doonay horta inaan halka hal su'aal ama halka inaan jawaab buuxda ka siiyo ninka dhalinyarada ee social media ku jira waxa leeyahay saaxiib horta warantii Hargeysa iyo Burco iyo Boorama iyo Gabiley waxa ay magaranayay ay la mid yihiin sidii aan u tagi karin ama xildhibaanka laga soo doorto aan u tagi karin jidib oo ognahay qoryaha islaamiyada ka talisay u tagi karin ay la mid tahay xildhibaanka xamar laga soo doorto ee Soomaaliland la matalaad baan ka qabaa Soomaaliland baan matalaana aan u iman karin Hargeysa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سولو أصحابي المقالك في شركة كوريين سمرت هذه توعن كعوض سنة تعوض مقالك نمي اللي رجال يا بن صاحب بلدك واحد عليا ما علمت هذا كوب الله نقف لكم هذا اليوم thank you so much من صاحب هذا مالك سودون يدافعه يدوك أنت على سواك تشوكتين واي هاي صاحب يا رسول قشة ونكسن وده تشوك ونكسن هل كان كل تجين وده تشوكني ولا هاي نقدركو يا رجيني إن شاء الله رمضان مبارك ولا رمضان كريم هل كان كل أبريد بضمن كسمين دونا وده تشوك دونا إلهي ذيك سامر كسود وهذا واي هاي ما أنت معاه والله أعرف من دون دلستاجو أما إنك الله أبيال أيام ما أنت موضوع عنك حليا وأدقيه معنا مركز صالح وحن كوضع وحن دون دلستاجو أرين كده هذا مقالة مقدشة معلمة درها تأحيد وكسب سند حلي بانو لدباتي أما الأفلقادي وكتر سنة أغلى كبرلمان كسوماليا يستو كلا قربينتا إيه كمدني جا بريق Somaliland مقالنسا كده علمي أو ها عينك SSB عينك G36 والله عيدين سوتشري أو يجينا Somaliland قرميسي أما قرمين كوسميسي لبضع عرم مساحة بالدنيا وقرنتي ندور استاجو سود هذا مقالك في شركة من دير سي كارسية ويا هي صاحب يال وقرنتي وحندونية بل أنت أنا مقالك كفالة ما أنت أنا مقالك ندور استاجنا ما أنت أنا مقالك كهذا صاحب يال بلارتو قرنتي نكنا اليردا سأقول فأنت موضوع عن كهذا إن المقالك سوى طاورنا waxaa arkaa shalay iyo maanta isaaq lagu camiranayo la leeyahay barakacyaalaatihiin horta isaaqu waa qabiil laandheera ah oo qadiyey waay laakiin waa goorma mid kale markay Somaliland joogaan waay markay inta joogaan barakacyaal waay sababtana qof aan matalaad lahayn Soomaaliya dawladdu waxay ka jirtaa 20 iyo dhowr sano ka jirtaa yaa qof aan matalaad lahayn bal ka war bilaa ku dhashay wuxuu noqon karaa reeha wiya xasan sheekh wataan daaroodka xamse wataan marxumaas ka dhahan adiga waayahay saaxiibayaal saawada jeedaan ama saawada aragteen ama saydo wada muuqanaysa waxa weeyaan ninkan dhalinyarada waxa la Cabdiqaadir Boos waxa weeyaan nin Facebook-ga oo ah dadka magaranayay social caanka ka ah ama influencer-ka waxa weeyaan reer ahaan ama deegaan ahaan ka soo jeeda magaalada Muqdisho gaar ahaan adaan hoos sii daadagna qabiilka loo yaqaan Afgaalka ayuu ka soo jeeda waxa weeyaan yaani lafta hoose ee madaxweynaha hadda dalka ka taliya ama Soomaaliya ka taliya naahne iyo xasan sheekh maxamuud waxyaabo saan uga hadlaya waxyaabo erayada caynkan ka keenay waxa weeyaan uu leeyahay macna xildhibaanada ee ka soo jeeda Somaliland ee jooga Muqdisho macnaha waxa weeyaan barakacyaal uu leeyahay waxaan doonay horta inaan halka hal su'aal ama halka inaan jawaab buuxda ka siiyo ninka dhalinyarada ee social media ku jira waxa leeyahay saaxiib horta warantii Hargeysa iyo Burco iyo Boorama iyo Gabiley waxa ay magaranayay ay la mid yihiin sidii aan u tagi karin ama xildhibaanka laga soo doorto aan u tagi karin jidib
oon ognahay qoryaha islaam cidda ka talisay u tagi karin ay la mid tahay xildhibaanka xamar laga soo doorto ee Soomaaliland la matalaad baan ka qabaa Soomaaliland baan matalaana aan u iman karin Hargeysa macnaheedu waxa weeyaan hadaad ka dhigaysid xildhibaanka hadlada waa baraka Camar hadlada Soomaaliland baan matalaa macnaheedu waxaan isweydiiyay warha iyo may ilaahu naga wada keenin macnaha badanaa dadka social media ku jira ama dadka Soomaaliya aaminsan ma mabda'a Soomaalinimada dadka aaminsani badanaa waxay ku doodaan Soomaaliland inay ka mid tahay qayb ka mid ah Soomaaliyeed tahay waa si iyagu aaminsan ama waa si iyagu isleeyahay laakiin uusan aaminsanaa markay Soomaaliland haasi aaminsan yihiin ma aha macnaha markaas waxaan ka wadaa ma ka dhaadhicin karto nin dhalinyaro oo da'da 30 jirsaday ama ilaa 35 jir u dhaxeeyo Soomaaliland ku dhasho inta jir kama dhaadhicin kartay Soomaaliland qayb ka nahay macna qof aaminsan ma jiro mana kan qayb san wada aaminsanahay waa fahanteen Soomaha laakiin ninka dhalinyarada ah in dhibaatada iyo wax barbaleenka ama dhibaatada taagan aan dareensanin ee Soomaaliya joogo waxa aaminsan Soomaaliland in Soomaaliya ka mid tahay macna haddana 40 jirkeeda ama 35 jirkeeda xamar ka soo jeeda ee dadka social activity ay ku jira waxa weeyaan ninka caynka u hadlaya ninka erayada caynkaas ay ka soo yeedhiyaan macnaha hadaa doonaysid midnimo ama hadaa doonaysid Soomaaliland iyo Soomaaliya isku soo noqda adiga maxaa laga baahan yahay dad xamar tahay waxa laga baahan yahay inaad wax kasta dhex ka haato laakiin hadda aad u fikirka markaad aaminsan tahay aniguna maxaan aaminsanahay wasan ku soo bandhigay saaxiibo waad fahantaa Soomaha xildhibaanka inta meel soo istaajay lagu baxdiyay xildhibaanada horteeda oo magaalada Soomaaliya waa qaxoonta ama barakacayaal macnaha waxa la horta matalaad Soomaaliland ka wada haystaba saad adigu hore u sheegtay balse laakiin wuxuu la mid yahay xildhibaanka jidib laga soo doortay ee anti karin ayaa la mid yahay halka taas ayaan kaga baxayaa oo waxa xildhibaanadii loo hanjibiyay ama xildhibaanadii magaalada Muqdisho ee dhibaatada magaalada dooni in loogu geystay ee magaalada aan dhahdee aha xildhibaanadii lagu horbaxday xildhibaanada kale lahaa waa barakacayaal oo dadkooda matalaad kama haystaan in inta kaga jawaabo ayaan doonayaa waayahay mowduuca labadan saaxiibada loo istaagay xaweeye tan iyo la shalato waxa wajiga koowaad iyo wajiga labaad bal qareebay ciidamada kala gedisan ee madaniga ee ka dagaalamay gobolada bariga Soomaaliland ee la dagaalamay dadka kale ee magaalada Sayuus deegaankaas ee Soomaaliland ka soo horjeeda isleeyeen oo iyaga dib loo qareemay oo magaalada ciidan rasmi laga dhigay macnaha dad ku badan waxay isweydiinayaan nimankan la qarameynayo maxaa laga qarameynayaa maxay qarameyntooda waxay soo kordhaysaa macna malasan ku awood badan yihiin dadku su'aalaankaas ayaa isweydiinaya ugu horantii muuqaalkan wada daawan aad baan salaamaya waxaan ka soo hadlayaa magaalada Ceergaabo ahay dhammaan ciidamadii madaniga ah ku sugnaa gobolka Sanaag haday noqoto G36 haday noqoto SSB ba dhammaan wala wada qarameeyay magaalada caawa waa nadiif wax gaadhi heer leeyahay oo maraya haba yaraatay ma jiro marka dadku qaarba siba u dhigay laakiin anigu waa ku raacsanahay dawladda arinta waayahay saaxiibayaal muuqaalka aad wada daawanaysaa ninka dhalinyarada ka hadlayay arinkaas wuxuu ku tusayaa ama wuxuu ku jahaynaya macnaha sida rasmiga ay tahay in la qarameeyo ciidan maleeshiyad beelada oo system maleeshiyada ku dagaalamay in la qarameeyo in xasilooni buuxda helayaan gobolka oo dhabi in xasilooni buuxda helayaan gobolada bariga ee Soomaaliland macnaha markii ciidanka dawladdu gacanta ku hayso waa ciidan kantaroolan waa ciidan maamul waa ciidan kala dambeyn laakiin markuu yahay ciidan qabiiliya oo qolobla ay gaarigeeda wadato maaha ciidan kala amal qaata waa ciidan xilli kasta ama time kasta iyagu baahdaan bixi kara xilliga doonana soo gali kara macnaha waxa weeyaan in dawladda ay kantaroosho ciidan qorisita waxyaabo ugu muhiimsan waxa weeyaan in la helo kantaroolka amniga in la helo wada noolaanshaha bulshada in la helo wada joogga bulshada waa fahanteen Soomaha si kastaba noqoto saaxiibayaal aad iyo aad baan soo dhaweynayaa labada wajiga kala gedisan wajiga koowaad iyo wajiga labaad ee la qarameeyay ciidamada madaniga ee ka dagaalamay gobolada bariga Soomaaliland ama difaacaya dalkooda qaybta bariga ee Soomaaliland macna aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay macna dawladdu inay gacanta ku wada hayso amniyaadka dalka waa mid iyada dawladdu muhiim ah macna inaad aragtid gaari hab qabiil ku qorayahay ama reer ku qorayahay inaad aragtid magaalada ciidan qabiil u hubaysan macna waxa ka turjumaysaa dalkaasu inaan amnigiisu aan faraha ku jirin laakiin haddaad aragtid ciidan dhamaantii wada qarana oo wada hal dawlad wada hoostaga oo hal maamul leh waxa weeyaan ciidan mar walba ciidan gacanta lagu hayo si kastaba noqoto saaxiibayaal sidaad kula muuqataa labada mawduuc baan doonayna ka hadlo in badan baynu kala muuqneen hadalka waa ka raagay ee barnaamijyada waa ka raagay waxaan rajaynayaa Ilaahay idinkiisa inaad u kala muuqaalka sii dheeraysan halkaas sida tooska nooga daawanayso barteen Facebook Cabdirsaaq Maxamed iyo soo kala barteen YouTube ee caawin official muuqaalka sii share garaya aad ba mahadsantahay